مقعي وسعيد علي عمر أو مقع ده سعيد علي حماري دبك وحو بالله زي حلقة لحسة عباري أنا أقول قليه إنه دبك جرو دنك بكارها إذا ودخ فيها بدنا يكون قارني قرمز كدك بحكوا قولي سين إني دبك دميان ساعة مركز لحسة يروي دقيقة دبك شغال يقولوا كلام وحنا سوق وقويين كوي توسع وصوح نمو وقت دير بو دبك السعودي دبكو ما مد حوغن بو اها دبك aad wuxuu kanay shaqaalaha waxay ku guuleysteen inay ka xakameeyaan dabaqyada oo agagaarkiisa ku yaalo waxa gubtay waa hadda waa laba dabaq oo dhanka hoos badbaaday waa dhanka kor waxa ka gubtay oo kaliya hantida badan waa badbaaday waa halkee marka bakaara ka dhankay meelaha gubata xalay waa dhanka oo khaliif agtiis ka hor waa gartay maxaa qasaaro aragteen خسارة واحد قلت وخسارة زائد ما هن وي ويرى خسارة wax shaqaalihiina wax noqdeen shaqaalihi waxa lagu qofaya mid ayaa dawaq ka soo dhacay midna adiga lugta ayaa farti oo wax ka gaaray oo jawan alxamdulillah inta badan kulay waa bad qabaan waa gartay marka dadkii bakaara ku sugnaa suuqa oo kale meelaha dabka ay ka kaceen sariflayaashii ilaa qeybaha kabaha lagu iibiyo dabka uu saameeyay ma wax dadoo wax noqdaa jira mise hantidaasun baa meesha ku la'atay hantida oo kaliya ayaa ku la'atay qof oo wax ku gaaray ma jirto sidaan wada ognahay xalay waqtigii dambe suuq weyn ee bakaaraha waxaa ka kacay dad aada u xoogan dabkaas oo geystay hantiya khasaarahaas oo ahaa suuq weyn ee bakaaraha qaybo kamid ah gaar ahaan dabaqa caanka ah ku yaala suuqa sarifweynaha ayaa la sheegaya in dadkaasi oo qaybta kordhan dabaqa ku gubtay laakiin waxaa dimiyey shirkada caanka ah ee hormuud telecom Soomaaliya oo garab ka helaysay maamulka gobolka Banaadir waa gartay halkee buu leeyahay marka khasaaraha guud ee dabkan khasaaraha guud markaan fiirino dabka waxa uu geystay dabaqa kacmaan dabaqa kale inuu ku faafay dadka isku raaceen laakiin dabaqa kale dadka ma gaarin waxaa dadaalay baabuurta degdegmiska ee hormuud telecom Soomaaliya marka hal dabaq oo kaliya ayaa gubtay aad iyo aad marka maxaa dabkan sababay inuu kaco leeyahay dadka hadaleynta uu balaaran ee isku dhex marayaan waxa ahayd in oo kaciyay koronto waa gartay marka waxaad ka warantaa dabaqaas mooyaane waxaa jira goobo kale oo ganacsi oo goobta ku yaala oo dabkaasi uu baabiyey dadka ayuu ka warhaya dabkii kacay suuq weyn ee bakaaraha 4 bil ka hor 5 bil ka hor khasaarihii uu banaa suuq weyn bakaaraha soo gaaray dadka markuu dabka kacay si ahaantooda waxay kala baxayaan suuqa hantidooda ayagoo ka fikiraya tii waqtiga hore ka dhacay suuq weyn ee bakaaraha ee dabka qaab loo timiilo waayo marka laakiin markii ugu dambeysay dadaalka ay suubiyeen shirkadaha hormuud telecom Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed maamulka gobolka guud ahaan dadkii markii dambe waa la baqtay